waxaana la yidhahdaa la dagaalanka musuq maasuqa dagaal wada aragteen soo inuu ku jiro meesha ma la dagaalanka dagaal baa ku jira marka hore waa kuwa naxariisanayna mar labaadka laakiin waa fight nin dagaalamayana hubkiisu sita intaan iska soo gallo niman iska soconayo cala kraan iyo cala maskaxaad sanadii sheegay ku shaqeynaya mani procedures iyo rule of law baan raaci doonaa qorshaha qaran ee dabargoynta aafada ku habsatay dowladnimadeena awoodaha ballaaran ee dastuurku huwiyey iyo hanaanka shaqo ee guddiga dastuuriga ah ee ka hortagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayuu u sharaxayaa agaasinka guud iyo agaasimo waaxeedyada madaxtooyada qaranka oo ka mid ah xafiisyada dowladda ee guddigu doorbiday inuu ka bilaabo shaqada uu u igma yahay ee dabagalka iyo ciribtirka musuqmaasuqa madaxweynuhu wuxuu nagu yidhi maantiina la dhaariyo na wacdiyayay war halka ugu sarreysa ka bilaabay miskiin yaroo 2 kun la carrama meel yaroo xafiis siyara daba mariyinta hadda ku meerastaa waxba tarimaysa inagoo wasiir jeebeenay marka la arko oo dawladdu ku faraxdo dadkuna xunay wallahi nimankaas waa shaqeynaya anaguna waa og waxaan noo calaamadsan inaanu sameeyno big change oo dadka tensionkiisa soo jeediyo cadaaladina ka muuqato kusimaha agaasimaha guud ahna agaasima ku-xigeenka madaxtooyada qaranka mudane cabdinuur maxamed axmed oo xubnaha guddiga soo dhaweeyey ayaa warbixin ka siiyey hufnaanta hanaanka maamul maaliyadeed ee madaxtooyada habraaca shaqaalaysiinta iyo ilaalinta xuquuqda howlwadeennada mid waxaan la fariisanay hanti dhowraha qaranka bacdama uusan guddiga effective ahayn uusan shaqeynaynin waxayna na siiyeen talooyin maamul iyo kuwa maaliyadeed oo u baahan inaan ka saxno madaxtooyada kuwaasoo laga soo dhex saaray riboodkii hanti dhowrka ahaa ee xilligaas la sii daayay waxyaabihii ugu muhiimsanaana waxaa ka mid ahaa inaan sameyno hanti dhowro gudaha ah madaxtooyada ah waxaanan bishii November magacaabnay walaalkeen Axmed Saciid oo runtii ah khabiir dhanka maamulka maaliyadda ah muddo dheer kusoo shaqeynayay shahaadada koowaad iyo talabaad ee jaamacadana ka wata culumtaas wixii ka dambeeyana waxay wada shaqeyn buuxdana dhexmarta xafiiska hanti dhowraha riboodka ugu horreeyay 4 bilood sanadkan ay soo saareenna waxay sheegeen 5 waxyaabood ee ay ku tuhmayeen madaxtooyada ay ka gaabiseen 4 ka mid ah la saxay mid ka midana ay hawshu ku jirto guddiga ayaa ka wacyigeliyey agaasimayaasha madaxtooyada ee kulanka ka qayb galay cawaaqib xumada musuqmaasuqa oo ah mid la iskula xisaabtamayo adduun iyo aakhiraba waxa ayna soo bandhigeen tallaabooyinka sharci iyo ciqaabaha ay muteysan karaan kuwa caadaystay ku takrifalka awoodda iyo hantida ummadda waxaa jira saacadaha shaqadu waa very important waxa lagu hayirgeeyay 8 hours kaas waxa laga yaabaa inaad 1 hour leedahay breakfast mid kale ma bixi kartid dad baxdo sabtiyo iyo cheating waxaan leenahay qayb investigation and intelligence la yiraahdo oo Cabdullaahi ka mas'uul ka yahay oo baaraysa waxa qof raydo caadi ah iska soo dhigaynaa waxa ay imanayaan wasaaradda full report bay qorayaan ku faraxsanahay mar labaad inaan maanta agaasimaha guud iyo agaasimayaashii kale ee madaxtooyada aan la kulanno oo aan isbaranno waxaa kaloo nagu mahad celinayaa inta hadda dhageysanay in kale oon ogahayba intuu asaga xilka yimid in madaxtooyadii hay'ado badan oo dowladda ay wada shaqeyn fiican yeesheen marka insha allahu dhammaantiin waa idin mahad celinayaa khaasatan isaga yagleelidda guddiga qaran ee ka hortagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqu waxa uu dhammaystir u yahay qorshayaasha qaran ee ku aadan ciribtirka musuqmaasuqa ragaadiyey hanaqaadka nidaamka dowladnimadeena oo ay dowladdu dadaal badan gelisay 4 sano ee la soo dhaafay Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Villa Soomaaliya.